ويقولي gabadhaada lama garnaqsado hadday toban ku dhashay marka is qabataan beeraysan ninka wax xalaale wuxuu tarayo waxaanu ka haysan wuxuu nasiiyaa toona ma jira nacasku xigana lama qadiyo isagu dhuunigaasa u muuqdo waxa ay sutiin iyo waxa tiintoona uma muuqdaano bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan idin salaamaya meel kasta aad joogtaan waxaan idin ka sheekaynayaa sheekooyinka ay ka barateen had iyo jaraale dadku ay xiiseeyaan oo had iyo jaraale taariikh iyo nuxur iyo wax wacyi gelin bulsho ku saabsan nin baa yidhi gabadhaadana lama garnaqsado nacasku xigana lama qadiyo ninkaa fiicanna lama culoobo ويقولي gabadhaada lama garnaqsado hadday toban ku dhashay marka is qabataan beeraysan ninka wax xalaale wuxuu tarayo waxaanu ka haysan wuxuu nasiiyaa toona ma jira dabadeedna hadalkaadu baxaysa waxaad oranaysaa waa beenteedii waxaana waa u qabtay inta meesha joogtaaba waxay oranayaan wallaahi waa qorqode saqajaansana reerkiisa wuxuu siiyey buu ku garnaqsanay haddaad iska aamusto istiraado waar waxba waxaan waa gabadhaadii waxba ha odhanina waxa la odhanayaa wixii ay iyadu sheegtay midba kama beeninine way jireen marka waxay ku fiican tahay gabadhaada inaan la idin dhex gelinin aad adigu dhamaysato wixii idin dhex yaala haddii kale marka arrinku idin ka kacay ay cirka u duusho inaad odayaal u dirto tirado war gabadhu wixii ay ku qancaysa baan qabaay soo dhameeya dabeedna aad arrinka qaadato oo aanad odhanin anna waxaan ka hadlay nacasku xigana lama qadiyo isagu dhuunigaasa u muuqdo waxa ay sutiin iyo waxa tiintoona uma muuqdaano culka ku doonaya iyo ka kiiska kugu leh iyo ka deynka kugu leh mid walba uu warramaya wuxuu odhanayaa lacag baa soo gashay maxaa ugu doonan weydeen uu kula culoobayo marka waxbaa la siiyaa nacaska ku xigan ninkaa fiicanna lama culoobe baa la yidhiyo waad la culowdaa xaajo kasta oo aad leedahay isaga ku xidhmaysa haddana ilaa waa kaa fiican yahay waa in adeerkaay dabadeetana markaad wax geysato ayuu odhanaya hebel waa kibreeye wixiisa ha laga jaro toban qaadhaan xun oo ag fadhiyana jaro wallaahi waa sidaa hebel sheegay haddaanad laakiin la culoobin wuxuu odhanaya waa ninku waa nine ayn maxaynu ka qaadnaa marka bulsho yahay sidaa u ogaada rag baan arkay gabadhooda la garnaqsado oo yidhaahda hana la eego qof dumarahoo guriga u joogto odhanaya hana la eego marka waa mamnuuc dhaqanka soomaalidana waa ka mamnuuc marka horeba rag iyo dumarku inay wada garnaqsadaan oo meel la isugu keeno sirtii qoyska iyo arrinkii qoyskana marka qof waliba afka gacanta iska geliya wixii yaallay soo qufo dabaduunbuu u baxaya dad kaluunbaa ku sheekaysanaya laakiin gabadhii haddii la yaho odaygaagii wuxuu yidhi gabadhaydu waxay ku qanacsan tahay baan qabanayaae maxaa ay ku qancaysaa iyadaaba xishoonayso is odhanaysaa ninkaagii waa ku rabaaye wax badan u xilqari marka aad iyo aad baan idiin salaamay